بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الدرس الثاني عشر كيلوات كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها جزكي سكوات أيام كجرني وحن سوى قادني 10 كيلوات هاتنا وحن قادنينا 10 كيلوات. الدرس الثاني 10 كيلوات وحكو سابسيهي ذلك كاس cashirkii hore waxaa kusoo qaadanay haadaa waxaa dhahnay haadaa waxaa loo isticmaalaa hal shay ama hal qof oo lab ah oo kuu dhow, balse daalika waxaa loo isticmaali doonaa hal shay ama hal qof oo lab ah oo kaa fog. daalika waxaa loo isticmaalaa waa hal qof ama hal shay oo lab ah oo kaa fog, wax kaa fog ayaa loo isticmaalaa daalika. marka waxaa la dhahaa daalika aliftaa ka dhex dhawaaqayso oo daalika ku jirto, aliftaas lama qoro laakiin waa lagu dhawaaqaa. waxaa jirto luqada carabiga xuruufun tuntaqu walaa tuktab, xuruuf lagu dhawaaqo oo aan la qorin. waxaa kamid a marka alifta ku jirto daalika ayaa kamid a, aliftaas waa lagu dhawaaqaa laakiin lama qoro. waxaa kaloo jira xuruufun tuktabu walaa tuntaq, xuruuf la qoro oo aan lagu dhawaaqin. xuruuftaas waxaa kamid a ulaaika, waawga ku jiro aa kamid a, ulaaika waawga ku jiro, waawgaas waa la qoraa laakiin laguma dhawaaqo. balse ulaaika alifta ku jirto oo ka dhex dhawaaqayso, aliftaas waa lagu dhawaaqaa laakiin lama qoro, oo qeybtii hore aan soo sheegnay oo daalika ayay ku tusaale tahay. marka daalika waxaa kaloo dhihi kartaa daaka kaasna waa dhihi kartaa, inaad laamka ka bixiso daalika kaas, daaka kaas, labadaas ereyba waa isku mid oo waa isku macno, sidaasna waa ugu dhawaaqi kartaa daaka kaas ama daalika kaas. maa daalika waa maxay kaas? daalika kaasi najmun waa xidig, daalika kaasi najmun waa xidig. haadaa kani masjidun waa masjid, wadaalika kaasina beytun waa guri. haadaa kani xisaanun waa faras, wadaalika kaasina ximaarun waa dameer. adaalika kalbun kaasi ey miyaa? laa maya, daalika kaasi qidun waa yaanyuur. maa daalika waa maxay kaas? daalika kaasi sariirun waa sariir. man haadaa kani waa kuma? waman daalika kaasina waa kuma. man haadaa kani waa kuma? waman daalika kaasina waa kuma. haadaa kani mudarisun waa macalin, wadaalika kaasina imaamun waa imaam. maa daalika waa maxay kaas? daalika kaasi xajarun waa dhagax. haadaa kani sukarun waa sokor, wadaalika kaasina labanun waa caano. tamriin layli iqra aqri waktub qor, iqra aqri waktub qor. nambarka koowaad haadaa kani sukarun waa sokor, wadaalika kaasina labanun waa caano. marka ereyadan fasiraadooda haddaan soo marnay. tamriinka marku wuxuu rabaa inuu kaa saxo alqiraa'a walkitaaba, aqrinta iyo qorista. marka ereyadan wax shaqala ma lahan, waxaa la rabaa marka inaad aqrin karto adigoo ka tusaale qaadanayo ereyadii hadda aad soo fahantay fasiraadooda iyo aqrintoodaba aad soo maqashay, adigoo tusaale ahaan u qaadanayo. nambarka koowaad haadaa sukarun wadaalika labanun. nambarka labaad man daalika? daalika imaamun. nambarka saddexaad adaalika qitun? laa, daalika kalbun. nambarka afaraad maa haadaa? haadaa xajarun. marka fasiraadooda haddaan soo sheegnay, haddana carabkaa marin doonaa. iqra aqri waktub qor. haadaa kani sukarun waa sokor, wadaalika kaasina labanun waa caano. nambarka labaad man daalika kaasi waa kuma? daalika kaasi imaamun waa imaam. nambarka saddexaad adaalika qidun? kaasi yaanyuur miyaa? laa maya, daalika kaasi kalbun waa ey. nambarka afaraad maa haadaa kani waa maxay? haadaa kani xajarun waa dhagax. alkalimaat aljadiida ereyada cusub. alkalimaatu ereyada aljadiidatu ee cusub.
imaamun imaam, xajarun dhagax, sukarun sokor, labanun caano. الدرس الثالث ayaan soo gaarnay cashirkan waxaa noo noqon doonaa cashirka saddexaad ee noo xiga. cashirkeena halkan ayaan ku simi doonaa. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.